ilan waaya in la dhaho anagoo rag dhulbaantaya oo hartiya oo midaysan oo Soomaaliya oo ciidan qaran ah in la dhaho waqtiga ka baxa Carmo meesha aan dhex taaganahay waa hoolkii weynaa oo ciidanka Carmo saacadaas ayaan doonaynaa inaan ka baxno waan weynaynaa iyo sool iyo sanaag waxaan halkan u nimid maamulka aan halkan u joognaa waxa weeye dowladda federaalka Soomaaliya inaanu nahay boolis oo askarta kamid ah hadda igu feeshan waa askar tiileegin ku jira dhibo xalay iyo habeen hore mala keenay magaalada Carmo waxaan la ka soo kaxeeyay Laascaano Buuhoodle iyo meesha la Ceergaabo waxaan nahay askar Soomaaliyeed waxaan la kay kuliyadda Carmo booliska Soomaaliyeed waxaan noo sheegay saacadaha in aan ka baxayno oo la ka taxiyay oo aan loo baahnayn laakiin waxaan arkaynaa inay tahay kuliyad Soomaaliyeed كل يدنا anagu reer kale dhulbaante waxaan u maleynayaa inaan anagu dulmanahay boqolkiiba boqol qalbigii adkaayo anaadka elidka adkaate maanke ilan waaya in la dhaho anagoo rag dhulbaantaya oo hartiya oo midaysan oo Soomaaliya oo ciidan qaran ah in la dhaho waqtiga ka baxa Carmo arrintaasina waa arrin aad u xun meesha aan dhex taaganahay waa hoolkii weynaa oo ciidanka Carmo saacadaas ayaan doonaynaa inaan ka baxno waan weynaynaa shalay ilaa xalay baan soo kala xiro ciidan midba meel baa laga keenay maxay waxay yimaadeen ama hadafkooda midnimada Soomaaliya hadda iyo waqtiga aan joogno oo ah 7 saac habeenimo ayaa amarna la siiyay waxaan ku yiri kuliyaddan hadii waagu inuu ku bariyo xabsi waa batiin xagana la diiday sida u jeedaan ciidankii oo dhan waa kan mid oo faashay مولد بوسيسي مركزي ألاكيسي هدي ألوا كورويا وديار